عيار لا يراهضه one expert خماركو وكل المغالبات التي يكون فيها العوض من الطرفين وكلا بدين كستا oo lacag la isku dhiganayo oo qofka badiya oo lacagta qaadanayo lacagaha waxa weeye yar marka ugu horeysa laga yaabo inuu qofku wax ku helo laakiin la sugayo arintaana wax ka jira ma jiro ee qofkii waa uu ku dhacmaya marka uu ku dhacmana lacagtii baa laga doonaya marka laga waayana meesha ku dambeynaya waxay noqonaysaa jeel waxa la aasaasay 2007 waxaanu saldhigeedu yahay xaaliyan جزيرة قبرص وانا شركات ودما فربادن او يوروبا laga mamnuucay bal wadamada qaar ijraa'ad qaanuuniye ay kaga socdaan dad waxa weeyaan jeelasha ku jira oo lacag loo dhiibtay ku isticmaalay abka noocan ee khamaarka ah inta ciyaareen wax weyn lacagtii ay haysteen oo dhan lagaga shubtay maryihiina dhiga oo waasha ta kaaga sii daran waxa weeyaan qofku wuxuu oranayaa lacagtii ka gashay ka soo celi lacagtii ka gashay ka soo celi markaasuu ku shubaya suutii hore bismillaah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasuulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Allah ya subhanahu wa ta'ala mahadamaanteed iska leh walaalayaal waxa laga maarmaana inaynu fahansanaano oo aynu maanka ku hayno inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yahay ka maslaxadeena aakhiro iyo teena adduunyo labadaba ogsoon Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax kasta oo maslaxadeena aakhiro iyo ta adduunyaba ah waa inoo xalaalay wax kasta oo waxyeelo iyo dhibaato ku ah aakhiradeenna iyo adduunyadeennana waa inaga xaraantinimay waxyaabaha Allah iyo rasuulkiisa ay naga xarimeen waxa kamid ah shayga qamaarka la yiraahdo ama khamaarka Ilaahay ayaa subhanahu wa ta'ala ku xarimay fi kitaabihi al-aziz Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu yiri يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون الله سبحانه وتعالى آيات القرآن كأوحى وكليه isagoo inoogu dhawaaqay bismil iimaan magaca iimaanka dadkii iimaanka lahaayow khamriga iyo khamaarka iyo asnaamta iyo faalku waa wasakh buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala amal shaytaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay ka dheeraada si aad u liibaantaan waxa kale Ilaahay uu sii raacay subhanahu wa ta'ala shaytaanku waxa uu doonayaa khamriga iyo khamaarka sababtiisa inuu dhexdiina colaytan iyo cadaawad u galiyo oo markaasi uu idinka awdo xuska Ilaahay iyo salaada Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu ku soo gunaanaday maka waantoobaysaan oo maka dheeraanaysaan sidoo kale walaalayaal rasuulkeena suuban salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi waxa axaadiistiisa ku sugan oo soo aroortay arrin cadaynaysa xaaraantinimada khamaarka xadiiska Bukhari iyo Muslimba ay soo saareen waxa uu rasuulku yiri calayhi salaatu wassalaam man qaala li saahibihi ta'aal uqamirk falyatasaddaq qofka yiraahda saaxiibkii ku yiraahda kaalay oo khamaar ciyaarne qofkaasi ha sadaqadaysto kafaaradiisu waa sadaqo weeyaan macna waa qofka kaliya ay hadalkaasi uu ka soo baxo oo qof kale oo walaalkii oo muslima ku yiraahda kaalay inuu khamaar ciyaarne ayaa waxa looga baahan yahay inuu sadaqadaysto si ay dambi dhaaf sadaqadaasi ugu noqoto maxaad u malaynaysaa marka kii faraha la galay ee baashiray ee sideeda u sameeyay sidoo kale rasuulku wuxuu calayhi salaatu wassalaam kama fi muslim wuxuu rasuulku calayhi salaatu wassalaam
من لعب بالنردشير فكأنما سبق يده بلحم خنزير ودمه qofka ciyaara nardashiirka oo ah nooc ka mid a khamaarka ama qofka khamaar ciyaara waa sida isagii oo gacmihiisa ku midabeeyey oo dhexgeliyey hilib doofaar iyo dhiiggiisii. waxaynu ogsoonnahay doofaarku inuu yahay xayawaanada nijaasta ah ee u dhowaanshihiisa iyo taabashadiisuba ay xaaraan naga tahay iyo hilibkiisa cunitaankiisuba. qofka khamaar ciyaara ayaa rasuulku yidhi waxa uu la mid yahay qof uuska iyo dhiigga doofaarka faraha la galay, waana nijaas uu faraha la galay macnaheedu weeyaan. marka khamaarku waa nijaas xisiya oo qofku uu faraha la geliyo. sidoo kale rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam kamaa rawaahu axmed wa abu daawuud fii sunanih ومالك في الموطأ من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله qofka ciyaarta khamaarka ee nardiga la yiraahdo waxa uu caasiyey ilaahay iyo rasuulkiisa. caasinimada la caasiyo Allah subxaanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisuna waa dembi weyn. walaalayaal, mowduucin haddii aynu u soo guda degno oo aynu abaarno waxaynu ka hadlaynaa waa khamaar. adilada kitaabka iyo sunnada ah waxaynu u soo qaadanay caddaynayno khamaarka xaaraantinimadiisa. waana arrin muslimiintu ay ka dharagsan yihiin khamaarku inuu xaaraan yahay oo macluuman fi diini bidaruura. diinta waxa weeyaan si daruuro ah loo ogsoon yahay. qofka inkira xaaraantinimadiisuna diintiisa iyo islaamnimadiisa ayaa halis ku jirta. waxa laakiin laga yaabaa suwarka qaar iyo qaababka uu u dhigan yahay marmarka qaar khamaarka iyo noocyadiisa in dadka qaar ay ka dheeh gasho ama ismoodsiiyaanba inay shaqooyinka ka mid tahay. waxaynu caddayn lahayn markaa suuro inagu soo kordhay iyo qaab khamaar oo inagu soo kordhay waqtiyadan dambe inaynu caddayno. qaabka khamaarki waxa weeyaan khamaarku guud ahaanba nooc kasta uu yahay iyo sawir kasta uu leeyahay waa xaaraan oo ilaahay ayaa xaaraantinimeeyey iyo rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam. laakiin qaabka aynu gaarka u sheegi lahayn ee dad fara badan ay ku halaagsameen waa ciyaaro laga ciyaaro internetka oo khamaara. waxaa ka mid ah oo aan tusaale ahaan usoo qaadanayna la calaa sabiili alxasr ciyaar la yidhaahdo one expert. ciyaartan one expert waxaa iska leh shirkad iyadana magaceeda la yidhaahdo one expert. waana shirkad ku caana oo ku caanbaxday oo lagu yaqaano khamaarka internetka. waxaana u qeybsamaa shirkadani khamaarka ay samaysaa laba nooc. waa nooc muraahanaad ah iyo nooc alcaabun elektroniya ama electronic games. shirkaddan markaa waxaa la aasaasay sida warbixinaha aan ka akhrinay 2007 waxaanu saldhiggeedu yahay xaaliyan jasiiradda Qubros. waana shirkad wadamo fara badan oo Yuruba laga mamnuucay, bale wadamada qaar ijraa'ad qaanuuniya ay kaga socdaan amaba se maxkamadaha qaar ay waxa weeyaan waaranba u soo saareen la dalbanayo mulkiilayaasha shirkadda in la qabto. sababtuna wax kale ma aha, wadamada gaaladu khamaarku agtooda xaaraanka ma aha, laakiin dhibaatooyinka ay sababtay shirkaddani oo ay ugu horeyso wadamada gaalada ah ee aan iyagu sharciga ilaahay ku dhaqmin dadkoodu waxa ay waxa weeyaan ka sameeyaan khamaaro la isweydaarsanayo balaayin doolar oo dawladdu ay markaa ku qadayso oo aan wax tagasa iyo cashuur aan la bixinin. dawladuhu markaa waxay ku dhaqaaqaan waa cashuuraha markaa sida fudud loola dhuumanayo
ee loola baxsanayo ayaa waxay sababeen shirkadaas in waxa weeyaan loo qabsado cashuuro iyo waxa weeyaan qaanuunka oo ay ka hor yimaadeen. marka wadamo fara badan waaba daba socda sida wadanka Ruushka oo kale, wadamo fara badanna mamnuuc ay ka tahay shirkadan. qaabka marka loo ciyaaro sida aynu soo tilmaamnay waa laba nooc, waa muraahanaad iyo alcaab elektarooniya. muraahanaadku waxa weeyaan waa waxa la isku dhiganayaa ciyaaraha kubadda ee la ciyaarayo ee wadamada Yurub ka socda ee macruufka ah, liigaga la yaqaano oo ugu horeeyo Premier League Ingiriiska, ayaaba waxa la isla dhiganayaa ciyaarta caawa la ciyaarayo ama maanta la ciyaarayo koox Heblaayo iyo koox Heblaayo keeba badanaya. kooxda marka labada kooxood ee wada ciyaaraya ayaa mid walba waxa weeyaan qola ayaa waxay dhiganayaan lacag muayana, kuwa kale lacag muayana. hadii kuwani badiyaan lacagta macnaheedu waxa weeyaan kuwa waxa weeyaan qofka kale ay wareegaysa, hadii kan kale badiyana lacagtii waxa weeyaan ka kale ay qaadanaya. marka waa nasiib, cidii badisa lacagta ayaa markaasi lagala wareegay ay la wareegaysaa, cidii kooxdii ay taageeraysa laga badiyana lacagtiiba laga qaadanaya. waxay aad u soo shaabaxday oo ay xataa inagayna soo gaadhay waqtiyadii la qabanayay koobkii adduunka ee ka dhacay wadanka Qatar, oo malaayiin dollar iyo balaayiin dollar lagu kala qaaday khamaarka caynkaas. waxa kaloo isaguna jira geemamka iyo waxa weeyaan ciyaaraha elektarooniga ah ee laga dhex ciyaarayo abkan ama applicationkan oo isagu joogto ah oo waxa weeyaan kala noocyo duwan oo qofku uu gashanayo lacag muayana si uu ciyaaro game muayana. hadii uu badiyo marka uu qaadanayo lacag noocaasa, hadii laga badiyana lacagtii uu waayo. waxa ay sheegeen marka dadka baashiray arintan ee ciyaaray in geemamkaasi ay kala duwan yihiin oo midka uu ka sii adag yahay uu ka lacag badan yahay. waxa kaloo dadka waxa weeyaan arintan tajribeeyay ay sheegeen in lacagaha waxa weeye yar marka ugu horeysa laga yaabo inuu qofku wax ku helo, laakiin lala sugayo maalinta lacag buuran uu dhigto in laga xaalufinayo oo laga dhigayo isagii oo laga badiyay. haddaba walaalayaal, markaynu qaabka shirkadda khamaarka ka shaqeysa ee shaqadeedu uu yahay ganacsiga khamaarka aynu u iftiiminay wax yar oo ku saabsan arrinkeeda, waxaynu isku daynaa haddaba khamaarku muxuu yahay. culimadu waxay ku tacriifiyeen khamaarku waa kulli almaghaalabaat allatii yakuunu fiiha alciwadu min aطarafayn, waa kala badin kasta oo lacag la isku dhiganayo oo qofka badiya uu lacagtaa qaadanayo min alaqwaali walafcaal, ama hadal ha noqoto ama ha noqoto waxa weeyaan ficilo la sameynayo oo lagu kala badinayo. shaki kuma jiro walaalayaal in dadka gaaladu ay yihiin dad aan diini xidhin oo aanay diini maamulin ee iyagu keliya ka shaqeeya waxa weeyaan dan u ah ee lacag ay ka soo gelayso. laakiin inagu dad muslimiina haddii aynu nahay, diin baa ina xidhaysa oo ina dafraysa. diintaasi wixii ay naga xarintay waa inaynu aragno xaaraam, wixii ay noo xalaalaysayna waa inaynu xalaalnimo aynu ku sameyno inagoo xalaal u arkayna. haddaba walaalayaal, dhibaatada ay leedahay khamaarku, dhibka uu leeyahay iyo ciyaartiisu, haddii aynu si yaroo kooban u dul marno, waxaa ka mid a in khamaarku uu qofkii waxa weeyaan bani aadamka ka dhigayo inuu ictimaado waxa weeyaan bilmusaadafaat, waxyaabaha iyo nasiib inuu ictimaado oo uu iska ilaawo waxa weeyaan camalul yad, camalkii shaqadii uu gacanta ku qabsan lahaa, واحترام أسباب المشروعة iyo asbaabtii ilaahay uu noo sharciyeeyay ixtiraamkeeda aynu arsaaqda ku heli lahayn inuu iska ilaawo, bulshadiina halkaa dhibaato weyn ay ka soo foor saarto. waxaynu ognahay bulshadu way isku tiirsan yihiin, haddii la waayo ciddii shaqaynaysay noloshiina waa la waayaya,
haddii la waayo ciddii wax soo saaraysay ee intaajka samaynaysay noloshii waa la waayaya. marka dadkii ay markaa u dhurtaan khamaar ciyaar oo ay noqdaan dad seexda oo soo toosa oo khamaarun ciyaara, noloshii horta way cadilmaysaa, noloshii bani aadamku way istaagaysaa oo way fadhiisanaysaa. waxa kale oo iyana mafaasida ka mida khamaarka ciyaartiisu ay leedahay in ay sababto qillatul amaana, ammaano yari, oo dadkii waxa weeyaan kalsoonidii ay yaraato, ammaanadiina ay yaraato, oo qofku uu is yidhaahdo lacagtan lagu dhiibtay iyo meeshan aad ka shaqaynayso lacagteeda iska sii isticmaal si aad lacag ugu hesho, oo waxa weeyaan si fudud markaa aada u taajirto, ayaa laga yaabaa inuu shaydaanku ugu sheekeynayo. arrintaana wax ka jira ma jiro, ee qofkii waa uu ku dhacmaya. marka uu ku dhacmana lacagtii baa laga doonayaa, marka laga waayana meeshuu ku dambeynaya waxay noqonaysaa jeel. qofka waxa weeyaan waxaa laga yaabaa in uu ammaano haye yahay oo lacag loo dhiibto meheraduu joogo, lacagtaa inuu is yidhaahdo iska sii isticmaal. inuu qof waxa weeyaan dukaan u hayo oo isagu khasnadii hayo iyo lacagtii moobilka ku jirtay, uu is yidhaahdo iska sii isticmaal si aad waxa weeyaan si fudud lacag u hesho, oo halkaa isagu ku dhacmo, dadkii uu ammaanada u hayeyna uu dhaco. walaalayaal, khamaarka mafaasidiisa waxaa ka mid a inuu sababo diiqu sadr, qofkii inuu noloshiisu ay cidhiidhi noqoto oo laabtiisa ay cidhiidhi noqoto, oo marka dhacaasi uu ku yimaado in lacagtiisii uu waayo, oo qofku werwer iyo dhibaato iyo mushkilad iyo stress iyo culays uu ka bixi waayo. waxaynu ogsoonahay wadamada gaalada waxaynu maqli jirnay dadku way isdilaan, mid fooq iska soo tuuray iyo mid waxawey sun cabay iyo mid baaskoolada isku dhuftay. marka la baadho sababtuna ay noqonayso khamaar uu ciyaaray oo lagaga guulaystay oo noloshii uu cidhiidhi ku noqotay, isagoo shalay taajir ahaa oo maanta faqiir noqday. xanuun ka weyni markaa ma jirto, qofkii oo mar keliya sidaa dhulka ugu dhacay oo soo dhaadhacay. innagana maanta waxaynu aragnaatay inaynu soo gelayso, oo wixii aynu dhegta un ka maqli jirnay maanta aynu haynaba dad waxa weeyaan jeelasha ku jira oo lacago loo dhiibtay ku isticmaalay abka noocan ee khamaarka ah, dad meherada hayey oo lacagihii ay hayeen waxa weeyaan ku isticmaalay, oo iyaguna sidoo kale jeelasha ku jira. waxaa markaa imanaysa in la helo dad fara badan oo nolosha ka dhacay, oo qaarkood waxa weeyaan sababtaa ay ku waashaan. kiisas fara badan oo noocaan waa la hayaa, oo waa la sheegayaa in dad inta ciyaareen waxawey lacagtii ay haysteen oo dhan lagaga shubtay, maryihiina dhiga oo waasha. inay dadkii markaa isdilaan oo qofku waxawey intuu nolosha ka quusto, iimaan darrana ay u weheliso, oo markaa uu sidaa nolosha uu waxa weeyaan qudha iskaga jaro. waxaa kaloo markaasi mafaasida uu leeyahay khamaarka noocani ka mid a annahu yusabib alijraam, inuu sababo waxa weeyaan ijraamka iyo faldembiyeedyadu inay sahlanaadaan. oo sidaynu ogsoonahay khamaarka noocan oo kale ah ee internetka laga ciyaarayo ee maanta guryaheennii noogu soo galay, oo inanka yar isagoo qolkiisii hurdada jooga uu halkaa ka khamaarayo oo lacagtiisii waxa weeyaan halkaa kaga ciyaarayo, adduweynaha meesha ugu dambaysa ninkii joogina oo halkaa ka soo maamulayo, ayaa waxa weeyaan qofku marka uu qabatimo qofku markuu qabatimo khamaarka noocaasa ee internetka laga ciyaarayo ee lacagtiisii oo dhan lagaga shubto, ee uu isagiina qabatimo oo balwad ka noqotay, lacag buu doonayaa inuu helo uu khamaarka ku ciyaaro. halkuu ka doonaya waxay noqonaysaa inuu wadooyinka iyo shawaaricda uu istaago oo faldembiyeedyo ku kaco, oo dadka baadho, oo moobilada uu la baxsado, oo bakhaarada u dhaco, oo guryaha uu u dhaco, si uu u helo maxay wixii uu ku khamaari lahaa ee uu ku ciyaari lahaa. waxaa kaloo walaalay mafaasida ka mid a khamaarkan
inay adag tahay inuu qofku uu si fudud uu uga go-o oo saa aynu tilmaamnay balwadoo kale u noqonaya waa uu qabatimaya ta kaaga sii daran waxa weeyaan qofkii wuxuu is odhanayaa lacagtii kaa gashay ka soo celi lacagtii kaa gashay ka soo celi markaasuu ku shubayaa si uu tii hore ee laga cunay ama laga qaaday uu uga soo ceshado waxba laga yaabaa isaga niyaddiisa inay ku jirto markaad intaa hesho waxa weeyaan dibba ha ugu noqon oo isagu waxa weeyaan ujeedkiisu waa lacagtii kaa gashay ka soo celinaysaa baa laga yaabaa laakiin hayhaat halkuu kaga soo celinaya waa daban loo dhigay oo shaytaaniya oo uu si fudud ugu galay waa la jilaabtay waa la gatay gebigiisiiba qofku wuu ku dhurayaa wuu ku gurayaa lacagtii ka soo celi lacag kalaa kaga baxday tu kale ka soo celi tu kale ka soo celi wahaakadaa ilaa uu waayaba waxuu ku shubto iyana waa mushkilad kale qabantika noocaasa ee balwadda qofkii u noqday waxa kale oo walaalayaal aan doonaynaa inaan tambiihino dadka qaar ayaa waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan oo ay xayeysiiyaan applicationada noocana oo ay yidhaahdaan sidee baad lacag uga samayn kartaa onexbet ciwaano noocaasa intay internetka soo dhigtaan iyo barahooga iyo baraha bulshada ay yidhaahda waxaanu idinku tababaraynaa sidii aada u badin lahaydeen oo aada waxa weeyaan geemamka noocaasa aada u badin lahaydeen baanu idinku tababaraynaa qaar baa laga yaaba inay koorasyo ay qabtaan ku saabsan khamaarka ninkaasi waa nin khamaar dadka baraya xaaraan ka daran tii uu qofka sameynayay uu ku dhacay ayuu ku dhacayaa waayo waxa uu waxa weeyaan ugu kaalmeeyey dadka xumaan iyo waxa ilaahay uu xarimay waxaana iyana muhiimadda waxaa loo baahanyayana inuu qofku maskaxdiisa uu ka shaqaysiiyo qofka iyo shirkadda samaysatay applicationkan lagu ciyaarayo khamaarku horta waa qof mar walba u diyaara inuu isagu faa'iido marnaba diyaar uma aha inuu khasaaro ku dhaco marka sidee bay suurtagal u tahay inuu ina yari ku yidhaahdo waxaan ku barayaa sidii aada u bari lahayd sidii aada u badin lahayd iyo tabihii iyo xeeladihii aada ugu guulaysan lahayd oo aada malaayiin dollar aada waxa weeyaan aada uga heli lahayd ood uga sameyn lahayd waxaase waa sheeka bereley qofkanna waxaa la eeganayaa uun inta lacag buuran uu meeshaa kusoo shubayo qof lacag buuran ka helay meesha waa lalaaya inta hore waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo qofku $100 $200 waxyaaba noocaasa ayaan markaasi ayaan ka helay waxa markaasi iyana tambiihin u baahan bahalka khamriga bahalkan la yidhaahdo khamaarka ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu mataaneeyey isaga iyo khamriga inama alkhamru walmaysir khamriga iyo maysirka waa khamriga iyo khamaarki khamrigana waxaynu ognahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida xadiiska saxiixa ku sugan inuu yidhi qofka khamriga qaada iyo ka shushubaya iyo ka waxa weeyaan soo dhigaya iyo ka samaynaya intuba way nacdaleeyihin maysirkuna waa la mid iyo khamaarku ka khamaarka samaynaya ee ugu kaalmeynaya dadka kale ee buuxbuuxinaya applicationka u soo dejinaya iyo ka waxa weeyaan tusaya ee baraya intuba waa isku mid waa dad khamaaray oo khamrigii ciyaaray allah subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay watacaawanuu cala alithmi watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan waxaad isku kaashataan wanaagga iyo samafalka ha isku kaashanina xumaha iyo waxa weeyaan xadgudubka dembiga iyo xadgudubka ha isku kaashaninu ilaahay marka waa qofkii muslimka ah ood ugu kaalmaysay dembi inuu ku dhaco markaad u samaynayso applicationka eed u soo dejinayso eed u buuxbuuxinayso qayb baad ka tahay waxa weye khamar ciyaaridda dembigaana waad leedahay waxaa kaloo laga yaabaa inuu qofku yidhaahdo anigu lacag un baan ka helaayoo weli waxa weeyaan layga dhacay maba jirto waxaa qofkaana loo sheegayaa ama lacag ha ka helo ama yaanu lacag ka helin ama ha ka faa'iido ama ha ku khasaaro intaba horta wuxuu ku dhacay waa dembi waa khamaar wuxuu ciyaaray hadduu lacag ka helana lacagtaasi waa xaaraan cunitaankeeduna waa xaaraan qofkaasi waa qof dambaabay weeyaan lacagta kaa soo gelaysa khamaarkuna waxa weeyaan olol
iyo baraka dari ay wadataa marnaba ka faa'iidi maysid lacag xaaraan kugu soo gashay yamxaqu Allahu riba wa yurbi sadaqaat ilaahay isagoo ka hadlaya ribada waxa uu yiri ilaahay waa uu baabiyaa ribada sadaqooyinka maalka sadaqada laga bixiyana waa uu kobciyaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala sadaqada lafteedana ilaahay ajirkeedu kobciyaa marka xoolaha iyo lacagta aad ka sameynayso one expert wulf iyo waxa weeyaan kulayl baad ka sii qaadaysaa mooyaane marnaba faa'iido iyo waxa weeyaan inaad ka lacagaysato marnaba ha filin marka ka $1 ay ka soo gasho iyo ka 0.5 ay ka soo galaan iyo ka $100 ay ka soo galaan iyo ka 200 iyo 300 ay ka soo galayaan intuba waa dambiilayaal lacagta soo gashayna xaraam weey waaqica marka walaalayaal khamaarku waxa weeyaan waa mid u dhaxeeya mutaraddidun bayna an yaghrima aw yaghnima ma'a ghalabati al-mukhatara wuxuu dhaxeeya qofku inuu faa'iido oo helo khamaarka iyo inuu dhacmo oo khamaarka laga helo iyadoo ay u badan tahay inay khatari ku jirto oo qofkaas ay u badan tahay inuu khamaarka ku dhacmo oo khatartiisu badan yahay hadaba walaalayaal maalkii ilaahay uu ku soo galiyay ee laga yaabo sida xalaasha ah inaad u shaqaysatay maxaad khatar iskaga gelinaysaa maxaad dambi u doonanaysaa maxaad maalkaaga u dayacaysaa oo aad waxa weeyaan meel cidla u dhigaysaa jaahiliyadu maysarka uu ilaahay sheegay way ciyaari jireen oo qamaarka way ciyaari jireen laakiin se waa uu ka khatar yaraa kan oo waa uu dhinacna faa'iido kala aha culimadu waxay sheegaan inay carabtii Quraysheed ay ciyaari jireen qamaarka qaabkii u ciyaari jireenna uu ahaa in qofku waxa weeyaan geel la isku dhigto oo haddii qofku uu geela khamaarka uu ku qaado oo hasha ku guuleysto inuu barta ku gowraco oo uu waxa weeyaan uu qaybiyo dadka masaakiinta laakiin tani jeebab ay ku dhacaysaa gaar ah waa lagu faa'iido leeyahay cid ka faa'iideysa ma jirto oo aan ahayn ka ku guuleystay walaalayaal waxaynu ognahay gaaladu maalka muslimiinta sidii ay ku qaadan lahayd inay falowgeeda ay hayaan waxyaabaha noocan ee hanti jacaylka ku dhisan iyo hantida la urursanayo badanka yuhuud baa shirkadaha noocan iska leh marka wadamada ugu badan ee waliba laga ciyaaro wadamada Carabta iyo Afrika waa nidaam la doonayo dhaqaalaha adduunka oo dhan iyo lacagaha adduunka oo dhan cid gaar ah inay gacantooda gasho oo ay ku soo ururto dadka kale oo dhanna ay faqri u dhintaan waxay gaari doontaa heer inanka yar ee saacaha qaata oo bahalka ku xireeyo oo uu ku waxa weeyaan ku ciyaaro qamaarka haddii aan wax laga qaban oo aan bulshadu aan dhinac uga soo wada jeedsan oo aan wacyiga ummadda kor loo qaadin oo aan laga waanin waana culimada u kicin khatarteeda ayuu leeyahay khamaarkaas mujtamac oo dhanna waa uu saameynaya inagoo marka horeba dhibaatada wadamadan muslimiinta haysta iska badnayd gaar ahaan dadka Soomaalida ay dhalinyartii camal la'aanta ku badnayd oo waxa weeyaan dhibaatooyinku ay iska badnaayeen haddana marka ay dadkii nagu bartaan khamaar dhibaatadii way sii libilaamaysaa faqrigu wuu sii libilaamaya camal la'aantii waa ay sii libilaamaysaa marka waa makaa'id iyo dhagar xeeladaysan oo yuhuudda iyo shaytaanku ay iska kaashadeen oo la doonayo maalka dadka masaakiinta ah in lagu urursado ugu dambeyn walaalayaal waxa aan ku boorinayaa qof kasta oo muslina inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka cabsado oo aanay xaalkiisu noqon waxaan doonayaa maal uriidu maalan walow fi jawfi ximaar waxaan doonayaa maal meel kasta hayla galo walow calool dameer baan ka soo saaray wax in adduunyada in ilaahay wuxuu noo keenay inaynu ilaahay ka boqono aynu cibaadaysano wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uriidu minhum min rizqin wama uriidu minhum an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ilaahay baa waxarsaaqa subhanahu wa ta'ala arsaaqdu xagga ilaahay ba ka timaada wixii uu ilaahay ku qoray noloshanna marnaba seegmaysid
jeero aad dhamaysato dhiman maysid marka aad dhamaysato wixii ilaahay uu adduunyadan kuu qoray arsaaqa unbaad dhimanaysaa wixii ilaahay uu kuu qoray wax ka badanna ku heli maysid orod iyo dadaal siduu nabigu yiri calayhi salaatu wassalaam ilaahay subxaanahu watacaala naf walba waxa uu u qoray wixii ay waxa weeyaan cuni lahayd ee fa ajmilu talab ee sidii aad waxa weeyaan ku kasban lahaydeen arsaaqda wanaajiya oo qurxiya oo qaab xaaraanaha u marine si xalaala u mara taas ayaa quruxdeedu tahay maalka iyo arsaaqda iyo qaabka aad u shaqaysanayso marka uu yahay qaab sharciga ku salaysan oo xalaala ayuu quruxdiisu ay soo baxaysa laakiin mahma balaga maaluk wa tharwatuk si kastoo ay lacagtaadu u badan tahay iyo si kastoo maalkaagu u badan yahay qaabka uu kugu soo galay haddii ay xaaraam tahay waxa tahay kii ka qaawanuun waxa tahay kii waxa weeyaan werwer iyo qalaq uu ku abuuran yahay waxa tahay kii cibaadadiisu ay yartahay waxaynu aayaadka ilaahay subxaanahu watacaala uu inoogu tilmaamay in khamriga iyo khamaarka sababtiisa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoo sheegay in sababtiisa shaydaanku inooga awdayo xuska ilaahay iyo salaada dadka khamaarka ciyaara ee ku mashquulsan xus ilaahay ma yaqaanaan salaad ma haba sheegin cibaado haba sheegin waa dadka ugu liita ee ugu afka xun bay noqonayaan sababtuna waxa weeye dunuubta iyo macaasida ay galayaan ayaa waxay u sababaysaa oo ay sabab u tahay inay waxa weeyaan shaydaan qarin la noqdaan iyo saaxiib waxaan kusoo gabagabeynayaa walaalayaal in wixii uu ilaahay xaaraantinimeeyey aynu xaaraantinimadeeda aynu ku diinno aynu ku hadhno wuxuu ilaahay xalaaleeyeyna aynu xalaalnimadeeda u isticmaalno oo aan la helin dad odhanaya waa shaqo lacag baa laga sameeyaa waa xalaal dadka qaar baa laga yaaba inay ku dhiiradaan oo dhiiranaantooda ay waxa weeyaan ilaahay ku dhiiranayaan iyo sharcigiisu ay gaadhsiiso in wixii ilaahay uu xaaraantinimeeyey inay xalaaleeyaan marka inaynu ilaahay ka boqno subxaanahu watacaala oo aynu makaa'idda iyo shirqoollada shaydaanku dhigayo aynu ka tugtoonaano ayaa inala gudboon والله أعلم وحكم صلى الله على نبينا محمد وعلى